بسم الله الرحمن الرحيم. maanta ay taariikhdu ahayd 3 bishii koobaad ee 2025 jiida hore ee aaga Qorilugud ee ciidanka maamulka SSC Khaatumo waxa weerar gaadma ah ku soo qaaday maleeshiyadka argagixisada ah ee Somaliland kuwaasoo kala kulmay dhabarjab iyo khasaare ba'an oo naf iyo maalba leh oo loo geystay maleeshiyadka argagixisada ah. waxaa laga qabtay maxaabiis, waxaa laga qabtay hub fara badan oo small arms badan. inta aanu ka war hayno ugu yaraan 350 qori oo qoryaha small armska ah iyo 4 qori oo qoryaha loo yaqaan RPG-ga. waa inta aanu ka war hayno, welina jiidaha waa laga soo ururinayaa wixii laga qabtay iyo maxaabiis wixii dambe saxaafadan dib kala wadaagi doona. ujeedka weerarkaasi maleeshiyadka argagixisada ah oo ah kuwa caadaystayaal ah oo hadiyo gooraale u taagan inay nabadgelyo xumo ka abuuraan deegaanada nabadda ah ee geeska Afrika. waxay saaka soo weerareen hiirtii hore deegaanka Shangeed ee aaga Qorilugud, waxaana la gaarsiiyey ilaa iyo tuulada Qorilugud iyaga oo dhimasho iyo dhaawacba qaba. waxaan u cadaynaynaa haddii aan laga waantoobin xaalad abuurka iyo nabadgelyo xumada hadiyo gooraale soo noqnoqotay in xaaladdu aanay sidaa ahaan doonin, in ciidamada maamulka SSC Khaatumo aanay eegan doonin mar dambe fadhiisimada laga soo qaadayo weerarada ee bartooda ay ugu tagi doonaan. waxaan ku ammaanayaa ciidamada geesiyaasha ah ee naftood horeyaasha ah ee SSC Khaatumo saaka inay cagta mariyeen fadhiisimadii Qurcagaab iyo Faraslayaal ee duleedka Qorilugud oo ahaa kuwii laga soo duulay. weerarkan saaka la soo qaaday wuxuu markhaati ka yahay inaanay sinaba suuragal uga ahayn maleeshiyadka taliskoodu yahay Hargeysa, inaanay sinaba suuragal uga ahayn in ay nabad iyo wanaag iyo xasilooni ka damacsan yihiin deegaanada hareeraha ka xiga ee geeska Afrika, ha noqdaan kuwa Itoobiya ka xiga ama ha noqdaan kuwa Soomaaliya ka xiga. waxaanu se u ballan qaadaynaa nabadgelyo xumada ay ku tala galeen cawaaqibkooda inay iyagu heli doonaan. waxaanu u ballan qaadaynaa shacbi weynaha SSC Khaatumo min jiidali ilaa iyo Xadhir inay leeyihiin difaac iyo ciidamo ku filan iyo gaadh bir aan jabin. aad baad mahadsantihiin.